magaalada Boorama waxa ay jaamacadda Camuud tababar ku saabsan hab qoraalka tolmoon iyo tabaha la xidhiidha sidii maalgelinta ay u baahan tahay cilmi baadhis loo soo jiidan lahaa loogu soo gabagabeeyay cilmi baadhayaal da'yar oo ka kala socday 24 jaamacadood oo ku kala yaala dalalka Soomaaliland, Soomaaliya iyo Djibouti. xiritaanka tababarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda maalgashiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, mas'uuliyiinta gobolka, saraakiil ka socotay komishanka tacliinta sare, madaxda mas'uuliyiinta iyo halwadeennada jaamacadda Camuud iyo daneeyayaal kale. waxaana ugu horeyntii Mudane Yuusuf Cabdi Xareed, agaasimaha xafiiska cilmi baadhista iyo adeegga bulshada ee jaamacadda Camuud, oo isagoo ku soo halqabsanaya isweydiintiisa halka uu ahayd in tababarkan uu qabsoomo, uu yidhi markaas waxaan dana isweydiinay sidee cududda waxyaabihii markii Addis Ababa la joogay waxa ka dhashay sidee loo sameyn karaa waxa la weydiiyay young researcherska maxaa u baahantiin ama jaamacadaha la weydiiyay maxaa idin ku daran dabcan waad ogtihiin hab qoraalkeena iyo jaamacadeenu isma laha sidee loo kobcin karaa marka halkaas ka timiday oo tababarkani uu markaa ka yimiday kadibna in Camuud loogu sameeyo saas ayay ku timiday sideedabana jaamacadda Camuud ayay qoladaas la shaqeynayeen waaxda cilmi baadhista iyo arrimaha bulshada oo ka go'an sanadii u dambeeyay istaraatiijiyada ay qaadatay ahayd jaamacaddu qaybaha ay ka shaqeyso marka laga imaado waxbarista iyo dhigista in kor loo qaado cilmi baadhista iyo adeegga bulshada dadka lagu celiyo tiibay daarnayd ilaa heer caalami iyo heer dalba marka kuwani waa participantkii ka soo qayb galay markaas waxay ka kala socdaan ilaa 24 jaamacadood oo ku jira Soomaaliya iyo Somaliland iyo Djibouti ba sababtuna waxay ahayd waxaanu ka hooseynaa oo ka marka la eego capacity-da ay helaan wadamada jaarkiin. wixii intaasi ka dambeeyay ayaa ka faa'iideystayaasha iyo macallimiintii bixinaya tababarkan oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa dareenkoodu waxa uu ahaa waxaan kaloon u mahadcelinayaa maamulka jaamacadda Camuud oo sida quruxda badan u soo agaasimay workshopkan. waxaan ugu hambaleynayaa in ay ku dhamaatay si guul ah workshopkan qiimaha badan. waxaan kaloon u hambaleynayaa mahad gaar ah u soo jeedinayaa facilitatorskii iyo dadkii soo qaban qaabiyay workshopkan qiimaha badan. waxaan aad u jeclahay haddana inaysan halkan ku ekaanin arrintan aan aad uga faa'iideysanay ay noqoto mid sii socoto. wuxuu ahaa workshop aad iyo aad u qiimo badan. I have seen a lot of future of Somaliland. You know, most of the young are highly interested for knowledge, to grab the knowledge. I think we have to fill that gap. From my side, I was happy very much in this training. The city is very good. Everything was very good. Professor Mohamed Mahmoud Jaamac Diiriye, Dr. Saciid Axmed Walhad iyo Professor Axmed Cabdilaahi Boqorre oo iyaguna madashaas ka hadlay ayaa la dardaarmay ka faa'iideystayaasha waxna yidhaaheen qalbigan inuu salaamaya waana inuu sii sagooteena si khayr la inuu sii sagooteena waxaan ku faraxsanahay intaasoo dhalinyara oo Soomaaliya oo master iyo PhD wada sidata oo wada fadhiya oo wada tashanaysa aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu farxaynaa sidaan waxa lagu helay oo qodhaata nabadda ayaa lagu helaa sidaa quruxda badan loo fadhiin intiina soo wada master iyo PhD oo halka fadhiyo cidina gaar inaga haynin waa waxa roobka inoogu daayo aad iyo aad baan inuu sii sagooteeya inaad nabadda ku dashaastiin inaad ku dardaartiin dadkaad wax baraysiin jaamacadaas ku socotiina tababarkan aad qaadateen u gudbiya iyana iniga inuu ekaanin. Soomaalidu sideedaba meel walba ay joogaanba application-ka aad bay ugu liitaan waxay bartaan ma apply gareeyaan noqda kuwa apply gareeya imika resource-kii waa la siiyay indhihii waa la furay meelaha wax ka raadsanaysan waa la sheegay waxay ku xirantay kaliyaatay inaad shaqadaad qabanaysaa consistent inaad ka dhigtaan waa la bilaabaa laba jeer baa la qaadaa deetana halkaas marka dambe lagaga tagaa waxaan rajaynayaa inaad halka kaga tagin ta kale saddex u dambaysa waxa weeyaan waad barateen wax badan baad kala kororsateen
waxaa loo baahan yahay waad isla garanaysaan halkaa ha ku kala tegine muxuu ahaa weligiin walaala noqda wada shaqeeyana wax badan baad ummaddan u soo saaraysaan wax badan baad u soo saaraysaan isbeddel badanna waad keenaysaan. We welcome you. First, I would like to congratulate you on having completed this important workshop successfully. I hope that you have benefited or have made the utmost use of the knowledge you have been given here. There is no doubt that this topic, grant writing skill, is very important for our institutions. In fact, this is a topic or a field we lack it very much. I hope also that the knowledge you have gained from this workshop will impact our research activities in the future. gudoomiyaha jaamacadda Camuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil oo isaguna dardaarankaas sii xoojinaya ayaa waxa uu ka xariiqay marka dardaarankan idin siinayna waxaanu caaw hubka oo dhan idin soo duldhignay ee wasiirka idinku keenay in madaxdii gobolka idinku keenay jaamacadda oo dhan idin la hadlaysa waxa weeye halkaynu kala dagaalami lahayn gaajada halkii lagala dagaalami lahaa jahliga halkii lagala dagaalami lahaa cudurrada halkii lagala dagaalami lahaa ilbaxnimo darrada lagala dagaalami lahaa ayaa wali waxa lagu sii socdaa sida ka warqabtaan waxa weeyaan haadaanay ka yimaadeen wadamada qaarkood marka Yurub iyo Mareykanka iyo dhulka laga hadlayo 100 years waxa weeye before ay ka yimaadeen baynu inagu wali dib ugu sii socono cidda kaliya ka saari kartaana waxa weeye waa dadka aqoon-yahanka weey marka sida la sheegay annaga farxad weyn bay noo tahay waxaan aad ugu mahadnaqaynaa Liverpool University oo qayb weyn ka ah iyo Horn Project aad bay ayagana aan ugu mahadnaqaynaa kaalinta ay kaga jiraan Camuud ahaana diyaar baanu nahay inaan la sii wadno shaqada wixii kaalintan nagaga beegan wixii intaasi ka dambeeyay ayaa xogayaha gobolka Awdal iyo sarkaal ka socday komishanka tacliinta sare ee Soomaaliland oo iyaguna hadalkaas ka daba qaatay ay isdul taageen runtii aad baan ugu faraxsanahay isweydaarsigan oo daarnaa habka qoraalka tolmoon kaas oo ma garanaysaa ay soo qabaqaabiyeen jaamacadda Camuud oo kaashanaysa jaamacadda Liverpool iyo One Health runtii dad khubaro oo aad u qiimo badan ay daadihinayeen waxaan inagula dardaarmayaa inaynu dib ugu celino goobaheennii shaqada oo aynu intii ka hooseysay aan gaarsiino oo aynu halka ka sii wadno anigoo maamulkii gobolka iyo kii degmada kaga wakiilay erigan waxa marka koobaad sharaf noo ah ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaanba in maanta intaasoo jaamacadood iyo intaasoo ergo ay halkan iskugu yimaadaan ay faaqidaan wax kala faa'iideystaan runtii sharaf ay noo tahay ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaanba waxaana mataqaanaayay waxaasoo dhan sabab u ah nabadgelyada runtii ku soo dhawaada gobolkii waxbarashada gobolkii nabadda ugu dambeynaya wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha ee Soomaaliland Marwa Aamina Cilmi Fariide halkaas shaqaalooyin ku guddoonsiisay ka faa'iideystayaashii tababarkan waxna iyadoo xusaysa ahmiyadda tababarkan ay tiri aniga waa sabjagaygii waxa laga hadlayaa capacity building markay noqoto anigu waxaan ay capacity building consultant for organizational development marka sense bay ii sameynaysaa tababar sense weyn buu ii sameynayaa runtii waan ku faraxsanahay intaasoo jaamacadood oo ka soo qayb galay oo isugu yimi oo ah dhalinyaro wax baratay oo raba inay sameeyaan research adduunyada wax ku soo kordhiyaan 24 jaamacadood gobolkay doonaan baa ka yimaadaan aad baan idin wada salaamaya waxaan idinku dhiiri gelinayaa inaad hawsha halka iyo meel ka sareysa gaarsiisaan wixii annaga nagaga keen xidhana hadiiba ay jirto kulli jaamacadda Camuud baa iyadu iminka present ah oo nala soo xiriiri doonta